ururka saxafiyiinta Somaliland ee Solja ayaa cambaray xariga lagula kacay howlwadeennada TV-ga Ariel wax xarunta ururka saxafiyiinta warbaahinta kula hadlay gudoomiye ku-xigeenka ururka iyo agaasimaha fulinta ururka Solja waxaana hadaladoodii kamid ahaa waayo 2009 bishii 7 baynu ka dhamaynay waxa la xiray in ka badan 15 wariye waxa albaabada loo laabay Forward newspaper-kii madaxa banaana oo ilaa imika xiran waxa kale oo runtii wiigan oo kaliyaata marka laga tagaba wiigan oo kaliyaata shalay toole laba wariye ayaa lagu xiray CID-da oo markii dambe soo furdaaminay waxa ka horeeyay isaguna maalin ama laba cisho ka hor wariye Bakayle oo ilaa imika CID-da war faahfaahsan aanay ka soo saaray xarigiisa runtii markaad waxa soo dhan isku geyso waxa muuqanaysa in xorriyadda warbaahintu ay hoos u sii socoto haddii aan imka laga qabanna runtii meel aanan anagu mahadinayn bay ku sii socotaa wax laga qabtaan leenay mas'uuliyiinta dawladda oo madaxweynuhu ugu horeeyo iyo cid kasta oo shaqo ku laba runtii raga suxufiyiinta xidhan loo soo daayo xorriyadoodii allana la soo celiyaan leenay ay xabsiga dhigeen afarta wariye ee kala ah Badri Koosar Maxamuud Cabdiraxmaan Fantastic Aidarus iyo sawirqaade Kamal afarta wariye oo ka hawlgali jiray telefishinka la yiraahdo Ariel TV oo kamid ah warbaahinta Somaliland run ahaantii haddii aanu nahay ururka saxafiyiinta Somaliland Solja waxa aanu aad u cambaareynaa oo aan aad uga soo horjeednaa falkaasi sharciga baalmarsan ee wariyaashaasi lagula kacay runtii wariyaasha waanu ugu tagnay waanu la soo kulannay annaga oo kula kulannay saldhigga ee Koodbuur waxaanay noo sheegeen inay gudanayeen waajibkoodii shaqo isla markaasina warka ay soo duubeen ay dhinaciisa balance-ka ama loo yaqaan dheelitirka ay u socdeen sidii ay u heli lahaayeen waxaan codsanaynaa in wariyaashaas si degdeg ah xorriyadooda loogu soo celiyo ka harimayno waanu daba soconaynaa waananu isbarbar taagaynaa hal mid baanu xukuumadda iyo ciidanka isla waafaqi laana ilaa hadda war sharciga hal ilaaliyo war sharcigu waa kay noo dhaxeeya war waxaynu wax ku nahay waa sharciye war sharciga yaa la baalmalay salaamu calaykum waraxmatullahi marka ciidamadii ammaanka soo xidhay in la xidhay kasokow ma xiriir ma kala sameeysan ciidamadii soo xidhay iyo sababta ilaa hadda haystaan waxaanu isku day fara badan u sameynay inaanu taliyihii soo xidhay meesha la kulanno isla markaasina taliyahaasi uu yiri arrinkaasi wuu iga sareeyaa aniga taliyihii qaybta ayaanu la hadalnay taliyihii qaybtana waxa uu yiri arrinkaasi wuu iga sareeyaa waxa aanu aad isugu dayno oo isku taxalluujinay inaanu helo taliye Cabdilaahi Fadal Iimaan waxa nasiib darro ah Cabdilaahi nagamu qaban telefoonkii sidoo kale waxa warbaahinta la hadlay Garyaqaan Mubaarak Cabdi Ismaaciil oo xubinka ururka u dooda xuquuqul insaanka waxaana uu walaac weyn ka muujiyay xariga sharci darrada ee lagu hayo saxaafadda madaxa bannaan ee ka hawlgasha gudaha Somaliland xukuumaddu xariga oo ay ugu kacday ama booliiska noqoto ama cidda marka bixisay noqotay inuu yahay mid khilaafsan sharciga gaar ahaan dastuurka Somaliland sidoo Solja ka dhawaashay sala waxa la xilay laba suxufiyo kale oo ka shaqeeyay Star TV waxa laga soo daayay CID-da markii ka bacdi bariye badan oo loo sameeyay hadda waxa xiran wariye Maxamed Yuusuf Bakayle oo ku xiran isaguna xarunta CTU-da dad waa la xiri karaya laakiin waxa macnaha sameynaya waxa maxaa ka dhalanaya xariga suxufiyiinta waxa ka dhalan laba shay waaweyn oo ugu horeyso ku tumasho sharci oo maartay loo bareerayo oo aan ahayn wax lala kala xishoonayo sharciga lagu tunto iyadoo Somaliland dastuur leedahay xeer saxaafadeed leedahay suxufiyiinta maanta waxa loo xiray wax ka duwan wixii loo xiri jiray suxufiyiinta hore suxufiyiinta waxa lagu xiri jiray waxaad sheegteen war beena imika suxufiyiinta waxa lagu xiray waxaad sheegteen war runa suxufiyiintu waxay wax wareysanayeen ay shaqadoodii ka qabsanayeen dad iyo cabanaya oo ardayda cabashadooda waxay doonaan noqotay way caawdeen waxay marka cabashadooda la dhageysto cidda ka jawaabaysaa waxay kaga jawaabaysaa ay kaga jawaabto haday runta iyo haday been tahay laakiin marnaba waxa gafahay oo aan wax meesha taalo ahayn qof suxufi ah oo shaqada ummadda u hayay inuu xog bulshada soo gudbiyo in la yiraahdo qof cabanaya maxaad xog u dobtay waastay imkaan uu hadlayaan dareenkayga u cabirayo oo inka kamarada laga duubayo loo xiray Maxamed Mubaarak wax uga doobtay labada hadii waxaan anigu ku hadlayay qalad tahay cidda mas'uuliyadda yeelanaysa qofka hadlaya oo aniga maaha qofka kamarada duubaya maaha qofka wariyaha ay maaragtay warkayga duubaya sidoo kale arinta kale la yaab kale walaa cali waxa kamid ah waxa weeye anagu maanta waxaanu tagnay saldhigga soo soo booqano waxa loo diiday eheladiisu inay booqdaan ay u galaan oo ay cuntadii u geeyaan sidoo kale dadyoga kale saxaabtiisa soo booqan in loo diiday saldhigga inay u galaan tasriix gaf kala sharciyada dastuurku damaanad qaaday gaar ahaan qodobkiisa 27aad qofka eedeysanay xiran in cidda walbada iyo eheladiisa iyo qarankiisu ay la kulmaan oo ay soo arkaan Axmed Maxamuud Cumar Axmed Dayax Bulsha TV magaalada Hargeysa